jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa caawa isugu yimid kulan weyn oo afur ah kaasoo dhaqaale lagu ururinayay laguna caawinayay dadkii hantidooda ku waayay dabkii dhawaan gubay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. kulankan oo ka muuqday kalgacal iyo walaalnimo Soomaaliyeed ayaa waxaa soo qabanqaabiyay guddiga gurmadka Hargeysa, hay'adda Hope Development Foundation ee ka dhisan gobolka Minnesota iyo ganacsade Cabdiraxmaan Ciise Kaahin. waxaana ka soo qayb galay dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan, madax ka socota labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga, kuwa xilalka haya gobolka iyo degmada, iyo musharaxiin hadda u rucleynaya inay xilal ka qabtaan gobolka Minnesota iyo gobolada u dhow. waxaana ujeedka kulankan ahaa sidii loo garab istaagi lahaa walaalaha suuqa Waaheen. waatan xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka codsatay dadka Soomaaliyeed maalmaha barakeysan awgood inay ugu hoyliyaan walaalaha dhibtu gaartay lana garab istaagaan deeq iyo ducaba. caawa haddii qof madaxweyne Soomaaliya uu orday meeshan uu taagnaan lahaa, lacagta la aruuriyay hadda lacag ka badan la aruurin lahaa. marka waxaan filayaa imaamyaalka inay soo laaban karaan inta aan aruurinay aan dabal garayn karno. sadaqada waa muhiim, walaalaheena dhibaataysan intii aad tari kartiin tara. intaas ay idinkaga tagay. wasiir hore Axmed Muuse Cadaani iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota uga mahadceliyay siday u garab istaageen walaalaha dhibtu gaaray. wasiir Cadaani waxa uu ka mid ahaa dadkii caaway xafladan ka soo qayb galay, isla markaasna dadkii ka soo qayb galay u mahadceliyay. markii ay xafladdu soo dhamaatay ayaan waxaan weydiinay bal dareenkiisa sida uu caaway u arko. wamaasanta Cabdi, waaniga sheegay dareenkaygu runtii aniga oo qura maahay dadka reer Somaliland ee Minnesota oo joogay, inta halkan joogtay, inta dibadda joogtay, inta dalkiiba joogtay ama meel kasta oo dunida ah, qalbigooda wuu buuxaa. waxa weeye wax walba waxa orda wixii la bixinaya Ilaahay baa qoray, laakiin waxa weeye Soomaali meel kasta joogtaba arrintan way galgashay, way ka naxeen, waana dareenka runtii way ka celiyeen wixii ay ka qaban karayeen. dhammaan dadkii ka hadlay madasha ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay in dadka Soomaaliyeed si hagar la'aan ah isugu gurmadaan marka dhibaato dhacdo sida musiibadii ka dhacday suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. walaal Cabdixakiin aad baan ku mahadcelinayaa adiga iyo TV-ga qarankaba iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaan. waxaan leeyahay markale Ramadaan Kariim. caawa halkan waxaa soo keenay shirkan weyn oo aan muddo ka shaqaynaynay ummadda Soomaaliyeed gobolka joogta inaan garab istaagno walaalaha Soomaaliyeed ee reer Hargeysa, walaalaha reer Somaliland, dadka suuqa Waaheen wax ku waxyeeloobay. dareenkaygu runtii aad buu fiican yahay, maxaa yeelay waxaan isugu nimay inaan u hanti goyno, inaan wax siino. wali waa bilow, laakiin dhaqaale fiican baa la aruuriyay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. walaal Ramadaan Mubaarak. waxa weeyaan maanta ma sha Allah tabaaraka Allah xafladan waxa lagu dhacday maanta gurmadka ahayd si wanaagsan oo aad u qiimo badan. waxay muujinaysaa waxa weeyaan dhammaan dadka meesha isku yimid oo dhan waa dad ay keentay dareen Soomaalinimo oo ay rabaan inay u gurmadaan masiibada ka dhacday ee suuqa Waaheen. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan rajaynayaa inaan noqon doono tii u horeysay kuwa kale oo istaba socdaana ay magaranaysaa ka dambeyn doonaan. kasoo implement ahaan dhibaatada dhacday, waayo sanadkii ugu dambeeyay iyo dhowrkii bilood waxaan ka shaqaynaynay sidii loo abuuri lahaa shaqo abuurka iyo ganacsiga Somaliland iyo dhaqaalaha Somaliland kor loogu qaadi lahaa, balse aad baan uga damqanaynaa dhacdadan. waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba ka qayb qaadato taakulaynta Hargeysa iyo suuqa Waaheen. Cabdixakiin iyo warbaahinta dhammaantood waa mahadsantiin. qof kasta oo caawa halka yimi oo taageeray suuqa Waaheen gurmadkiisa oo reer Minnesota u mahadsan yahay. inta soo socota taageeri doonta way mahadsan yihiin. xukun dabar waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Fargo ee gobolka North Dakota. waxa uu u sharaxan yahay duqa magaalada Fargo. waa dhalinyarada iminka wax ka bedeli doona magaalada Fargo, isla markaasna tusi doona inay magaalada dadka soo galootiga wax ku leeyihiin. xukun soo dhawow, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka labaad bal caawa waxaad ka mid noqotay dadkii uu gurmaday ama garab istaaga walaalaheena reer Hargeysa, gaar ahaan kun maal iyo mug waayay suuqa Waaheen. caawa sida u jeedo jaaliyada Soomaaliyeed oo dhan caawa ma ay kala harin kulankan ay ku garab iyo gurmad u noqonayaan suuqii Waaheen. maxay ku tusaysaa marka aragtay Soomaali oo dhan halka isugu yimid isla markaasna garab istaaga walaalahood? Soomaalida mar walba dad aad isku taageera, qowmiyad aad isku taageera. hadda meesha halkan ka yimid Soomaalida dad kala baxsan ma waa dad always isgarab istaagan waay wax walba dhib iyo maaragtay iyo dheefba. marka waxyaalaha yar isku haysan mooyay waxa kale waa dad aad isku jeclaana. marka dareenkayga aad u fiican cawad inta. Samson Ismaan Cabdi waxa ay ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee sanadkan u sharaxan inay ka mid noqdaan xildhibaanada gobolka Minnesota, gaar ahaan waxay ka sharaxan tahay
xubinta xildhibaannimo ee kursiga 68 ee magaalada Idayna samsam waxa ay ka mid noqotay caaway dadkii ka qayb qaadanayay inay garab istaagaan walaalahooda reer Hargeysa aan ku weydiiyo bal dareenkaaga caaw I am excited to be here. Alhamdulillah, Ilahi maanta way keenay. Walaalahayga jooga Hargeysa waa la taaganahay iyo waan support gareeyaa. And the event was very beautiful, well put together. Xaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa dhaqaalihii caaway ay ururisay waxa lagu qiyaasay $500,000. Dakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.